أنا ومحسنتين سيدا واجبتين إماشيه إيو كلنكي أن عدسانين قوة الشمس سودوين كدب ولا ريال سيدا أكتهين حلقي هيدها الدستورية الدولة الفدرالكا وقبل ودماضي 40 سنة وحكاهري وحكير لحبلو سيدا درتيدا dadka Soomaaliyeed waxay horumar gaareen in muddada oo Soomaaliya oo dhan ay ku qanacsan tahay 40 sano inay doorasho xor iyo xalaal ah oo nabad ku dhacdo oo xasilooni ku dhacdo oo raalli ahaansho ku dhacdo inay dhacdo tii ayada ahayd weeytan hadda aan u fadhino oo aan ka shaqeyno waxa asal u ahaa oo ay ku soo bilaabatay Samareeb waxa gogol la dhigay Samareeb say ku timid gogoshaas yaan rabaa maanta inaan inta kaga sheego gogoshaas ayada oo dadkii Soomaaliyeed nin walba uu leeyahay xagee loo socdaa baarlamaankii uu sharciyo iyo shaqo doorasho uu wado dadkii kale Soomaaliyeed oo siyaasiyiinta ah ay leeyihiin doorashaan rabnaa sida loo socdana doorasho ma aha waxba lagu darayaa waa la kordhisanayaa extension baa la rabaa xeeladaysi baa la rabaa in la daahaa la rabaa walwal iyo walaac siyaasadeed markii aan aragnay yaan waxaan u istaagnay inaan dadkii madaxdii dowladaha federaalka xubnaha ka ah dowladii xubnaha ka ah iyo dowladii federaalka inaan isku xirno isu keenno gogol la dhigo la wada fariisto intaan gogosha la dhigin horta inaan isla helo ninkii ugu horeeyay ilaahay hortiisa Soomaalina marqaatiha ka haato raggii joogay oo marqaatida ahaana waa kana xiriirka sameeyay oo kii xabsanay iyo kii xanaaqsanaa iyo kii lahaa ma kici karin iyo kii faraxsanaa intaba ninkii inta isku xiray qad isugu soo galiyay oo yiri saanka badan kuma kala marnaan karnaa aan isku nimaano oo bilaabay qad telefoon ku bilaabay anigu waxaan u bilaabayeen waxay ahayd Soomaalinimo waxaan u bilaabayeen waxay ahayd walaacan iyo baqadintan iyo shakigan iyo kala qodnaanta in laga baxo markii laga aqbalay inaan wada xiriirno oo wada hadalno oo aan shirno oo dowladda federaalka inta ku qancin inaan wada shirno gobosha Samareeb waxaa dhigay madaxweyne reer qolka goboshaas hadda fidsan oo taalo madaxweynaha dhigay annagana waa ku maamuusnay annagana hormuud u ahay Soomaaliya marqaati ah dadka aan u dhigay oo isugu keenay oo meesha isugu yimid oo Soomaaliyeed nimba meel buu taagnaa labadan bari saa la socotaan magaalada Muqdisho waxaa yimid saaxiibadeen madaxda kale dowlad goboleedyada waxaan rabaa anigoo ixtiraam iyo xurmo badan iyo wanaag tiro badan u hay oo aad iyo aad u danaynayo midnimada iyo Soomaalinimada iyo wada noolaanshaha iyo isla jiridda iyo wax wada qabsiga inuu jiro maalin weey yaa waxaa la yiri annaga isu keenay maahan anigii hebel baa isu keenay maahan maba isku imaan lahayn ayaga waa joogeen saaxiibkayga saas dhahayo xanaaq uu meel ku go'oonsana hebelka waa noo keenay uu leeyahayna diyaarad fuuristuuba ka baqaayay meel ma tegi karo inta ma tegi karo ayadoo nin walbaba uu meeshiisa go'doon ku jiro annagaa telefoon ugu galnay annagaa Soomaali isu keenay annagaanan ka caajisayno haddana isu keenay habeenii maalin waxaan ka shaqeynayna maslaxa Soomaali waa
waxaan ku faraxsanahay brosesska dheeraa oo gobonnimada lahaa oo wanaagsanaa oo sharafta badnaa oo Samareeb 1 2 3 oo maanta miro iyo taariikh iyo wax la taaban kara ka soo baxay yaan aad iyo aad ugu faraxsanahay si fiican baan iskula jaan qaadnay isfahan fiican baa yimid madaxdii walaalayaal mudanayaal iyo marweyn sida la sheegay waxaan maanta isugu nimid inaan halkan tala yar ku sii galno annagoo u soconna isu imaad guud oo loo ballansan yahay ogtihiin si Samareeb 3 heshiiskii iyo qaabkii doorasho oo ka soo baxay loo dhammaystiro ama loo dhagaysto walaalihii ka maqnaa waxa ay ka qabaan iyo su'aalaha iyo meelaha ay ka qaban karaan inaan intaa dhammaystirno ayaa halkan isugu nimid haddana safar ugu soconnaa insha allah sida la sheegay annaga ma rabno inaan gadaal u raacno hadal kasta iyo qaab walba oo aan la jaan qaadayn midnimada horu socodka qaabka doorashada maanta xilliga la joogo aan hore ugu wadayn gadaal u raacmayno kelmad kasta waxaan ka qabsanaynaa midda saxda ah taan saxda ahayn waa sadigaynaa innagu waxaan qabanqaabinay walaalo aysan weliba markaas hawshu dhinacooda ka fogeynna ku qancinay in laysugu yimaado Samareeb 1 waxaa ka soo baxay wax raalli lagu wada yahay lagu wada qanacsan yahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan raalli ku yihiin waxaa la qabtay Samareeb 2 waxaa ka soo baxay waxay Soomaali ku wada qanacsan tahay waxaa loo gudbay Samareeb 3 waxaad ogtihiin in wax badan la sheegi jiray meesha waxaa ka socda halkaas niman dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah oo la shaqayn dowle oo yaa waxay samaysanayaan muddo kordhin xaggay tahay dadka Soomaaliyeed in loo sheegayay waxyaabo jahwareerin ah waxaad ogtihiin inay ku dhammaatay go'aamo dhaxalgal ah la isugu tanasulay runtii la qaatay fakar kastoo la kala qabay la isu tanasulay doorasho xalaal ah dhinac jirin dad gaarihii aysan shaati ay talanayaan ka dhigin inay ka soo baxday halkaas waxaa ku harteexan halkaas waxaa ka soo baxday wixii dadka loo jaawareerinayay iyo xanay ku har waxaan soo saarnay go'aamada markay soo baxeen waxaad ogtihiin Soomaali meel ay joogtaba inay soo dhaweysay waxaad ogtihiin inay noqotay qur'aan ma ahan oo waa la dhihi karaa meeshaas saxiix u baahan tahay ama meeshaas waxay u baahan tahay sidaas laakiin waxa soo baxday doorasho la daadajiyey shacabku ka qaybgalayaan dhinac u sanjeerin qof jeebka ugu jirin aniga ay dantayda ku jirta ahayn dadka Soomaaliyeed wada dareemayaan inay qayb ka yihiin doorashadaas waxaan sidoo kale halkaa ku cadaynay walaalihii ka maqnaa ama walaal kastoo kala haya inay taladiisa u furanta ama soo dhaweynayno intaan ka ahayn aniga dan iguma jirto gaar ah taas hadda Soomaalida dhageysan doonta waa wax la wada joogi doono haddii ay jirtana walaalkii qaba waa ka waaninaynaa waxaana leenahay doorasho haddaynan mid lagu wada qarca ahayn ama midaan gacmo gaara ka maran aysan ahayn ma qancinayso Soomaaliye sida gaarka ah haddii si gaar wax loo rabi karo lahaa ama uu jir lahaa walaal si gaar wax u rabaa ka waantaan lana Samareeb 3 waxaa ka soo baxay guul
soomaali ku noolaatay wax walba oo la jahwareynayana ku hareen haddana sidaan hore u sheegnay aan u soconno dhammaystirkeeda iyo dhegaysigeeda in aan dhegaysanno walaalihii ka maqnaa gadaal ugu noqon mayo yaa qabtay iyo dhihi mayo saaxiibkayaa ka hadlay ma raba inaan aniga meel ka taabto taas waxaan rabaa kaliya inaan dhahdo annaga waxaana la yidhahdaa dowladdeedu waa shaqayn dhow la leeyahay waa ku faanaynaa inaan soomaali wada shaqayn wada leedahay ma dhahayno dowladda federaalka soomaaliya waa dowladdaan qayb ka nahay cid naga lihina ma jirto ma dhahayno dowladdaan ka fognahay annaga kuma faanayno waxaan ku faanaynaa cid walba inaan u dhownahay isna fahamsannahay marka taas waxaan leenahay wada shaqaynta isfahamka isu soo jiijiidka isu furaanta inaanan kala qabin cogdad iyo mushkilad waxay noo tahay sharaf waxay u tahay muddo soomaaliyeed sharaf marnaba khilaaf iyo qalalaaso iyo wax kala qaybin annagu goob keeni mayno mana sheeganayno walaalahana dhammaan waxaan leenahay dhinac walba ay jirto ha laga fogaado taa iyada ah tan waxyaabaha xukuumadda iyo arrimaheeda lagu hadli jiray waxaanay usamareeb tiri walaalihii naga maqnaa ogtihiin inay naga maqnaayeen iyadoon ra-iisul wasaare la magacaabin meelna tegi mayno haddii ra-iisul wasaare lama magacaabin saaxiibadoodna waa yimaadeen marka ma waxaan idhahdaa usamareebaa la diidanaa miyaan idhahdaa masana waxaan idhahdaa walaalo waxay qila laayihiin inay ilbufeen marka tan xukuumaddana waxaan qabnaa marba in siyaasadda laga dhigo marba goobtaad joogta midabkeeda inaad yeelato sax maaha waa inaad leedahay qorshe cad oo siyaasadeed mar in la yidhaahdo ra-iisul wasaarihii lama magacaabin wax ma soco karaan marna la yidhaahdo lama baahnaya la iska daayo waxa weeyaan anagu taa ma qabno inayd ahayd in la soo dhaweeyo waa soo dhaweynaynaa intaas haddaan kaftanka uga baxo arrimaha dhuusamareeb run ahaantii wixii ka dhacay soomaaliduna waa og tahay dadkii joogana waa og yihiin saaxiibadayaana ka hadlay dhammaadkiisii gogoshaas sida saaxiibkay uu sheegay weliba aan u raacno hadday iyagu dhigeen iyo haddaan annagu dhignaba annagay noo tiille soomaalida waxay ku mahmaahdaa waxaa dad ugu dhib badan nimaad sagootisoon kaa socon iyo nimaad sugaysoon kuu soo socon haddii gogoshoodii aan sugnay oo na suga ayna lahayn oo dib noogu dhig aysan lahayn oo waana kan aysan lahayn haddaan muxuu ahay inaan la xiriirno isku daynay haddaan inaan doonno isku daynay haddaan salaadiin la hadalnay haddaan madaxweyneyaal hore iyo mas-uuliyiin la hadalnay haddaan inaan annagu doonno isku daynay intiiba aan weynay hadda sida saaxiibaday u sheegeen waxay nala ahayd inaan nidhaahno dantaaba ka liftay laakiin saaxiibaday markii ay yimideen ayadoo intaasu dhacday warnimayahow dhibkaasaan ku maqnayn iyo waxaasaa naga hadlaysnaa waa ka sugayne laakiin awalba ayagaa meesha iska taagtaagnaa annagaana tii hore geynay tanna ka maqnayn ka sugmayn meeshaan ka maqanahayna lama joogo waxaanan dhihinna lama dhihin annaga nama qabato warkaas hadda haddii iyadoo la daba socdo aan aragnana waa arkaynaa haddii la daba soco waayana meesheedaan uga dhaqaaqaynaa mas-uuliyadda ama doorashooyinka ha ahaato ama soomaaliya ha ahaatee mas-uuliyad wadareed way annaga dhanayna saaran tahay qofay gaar u saaran tahay ma jirto
dadkan Greek la yiraahdo ayaa waxay lahaa jireen nin boqora oo la yiraahdo Atlas ninkaas wuxuu aaminsanaa jiray culayska adduunka oo dhan inuu kaligiis dhabarka ku hayo dadkiina muxuu ahay wadamada ajnabiga ka mid waa aragteen taalooyin loo dhisay asagoo maaragtay adduunyadii ay dhabarka ka fuusho oo dhabanada haysta oo culays iyo dhidid iyo waxa ka socda mushkilada haysta aad yaabaysid asagu saasoo isku qanciyay dadkiisiina ma dhihin war adduunka kaliya ma haysida dhig ma aysan dhihin mas'uuliyadda Soomaaliyeed ninkii kaligiis dhabarka ka saarta annaga dhahayna war iska dhig kaliga ha qaadin ha ku mashquulin ha ku walwalin muxuu ahay noo imaaw nala hadal fikradaada keenso annaga dhahayna hadda haday joogto saaxiibadan maba kala foginba ayaga yiri gogoshii waa maba la xirinba cid xiri kartana male ayagaaba yiriba annaguna idin kama xirine haddana meel kale ha loo raro hana dhihina meel kale ha noo rarina dhuusa mareebna dadna kala celiyo waa joogaan haddii aan isqabsanno waxna la kala celinaa male xataa waa la bilaabay in la dhaho reer galguduud iyo reer mudug kala qabtay waxaan ahaynba maba yaqaaninba waxna kala qabto waa helaynaa waa joogaan waa buuxaan aan meesheenii aan tagno annagu teedii waa niri Soomaalidu waxay tiraahdaa ama tala keen ahaw ama tala raac ahaw annagu tala waa keennay ama nagu raaca ama midna dhaanta keena labadaba diyaaraan u nahay haddaad teena raacdaana alxamdulillaah rabbil caalamiin walaal jira wax dhibaataa ma leh tun naga fiican haddaad keentaan inay naga fiican tahay nagu qanciya Soomaalida ku qanciya beesha caalamka ku qanciya dadka wax doorana ku qanciya kuwa tartama ku qanciya hadday isla gartaan in taladeena laga fiican yahay taasaan qaadanaynaa dhuusa mareeb tiri wixii ka soo baxay cid kasta waa qirtay meel laga bilaabi karo wanaagsan inay tahay waliba raggeenan xoogaa laxanto leedikaba filanin xataa waa leeyahay wadnimo xoogaa waa isdhiiranaysan xataa waa leeyahay meel fiican aan keenay waana la qiray haddii ciidu abaal ay leedahay oo cid gaar ah farta loogu fiiqaayane labadaas nin oo ninna gogasha dhigay ninna oo ka nabad dooneeya abaalkeeda iska leh haddii intaas leesku quuri waayana ka badan leesku quuri maayo waxaan dhammaanteen qabnaa